بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiintan ah what are buy, sell or hold investment strategies in stock market. haddaan ku horumarno midda koowaad oo ah istaraatiijiyada maalgelinta buy ama soo gado, qofka maalgashtaha ah ama investorka ayaa waxa uu filayaa in qiimaha saamiga uu hadda raqiis yahay lana filayo inuu sare aadi doono. haddaba waxa uu soo gadanayaa saamigaas waxa uuna la sugayaa inta uu qiimaha sare aadayo. si aan iskula fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan aan dhahno shirkadda ABC hadda qiimaha saamigeeda waxa uu marayaa $50, waxaadna u aragtaa inuu raqiis yahay, waxaadna filaysaa inuu qiimaha sare aadi doono. haddaba waxaad soo iibsatay 100 saami, midkiiba waxaad ka bixisay $50. lacagta guud ee maalgelintaada waa 5,000, midaasoo ku timid $50. haddii aan ku dhufano 100 saami waa 5,000. istaraatiijiyada labaad waa sell ama iska gad ama iska iibi. xaaladan waxay liddi ku tahay midii hore oo markan waxaad filaysaa in qiimaha saamiga uu hoos u dhici doono, ama lacag ayaad u baahan tahay, ama waxa aad rabtaa inaad isku dheelitirtid maalgelinadaada kala duwan. markaas ayaad iska gadaysaa saamiyada aad rabtid inaad iibisid. si aan qeexidan u fahanno aan isla aragno tusaalahan haddaan xasuusanno shirkaddii ABC ahayd ee saamigeedii aan kusoo gadanay $50 cala sheer ayaa hadda waxaa la kala siisanayaa $60. haddii marka 60 aan ka jarno $50 waa $10 oo dheeri ah. haddaba 10kii waxaa ku dhufataa 100ka saami, waxaad helaysaa $1,000 oo faa'iido ah. hadda marka waad iska gadaysaa. markaana aan isla aragno istaraatiijiyada u dambaysa ee ah hold. tani waa dhexdhexaad, mana soo gadanaysid mana iska gadaysid, waayo waxaad ogtahay in qiimaha saamiga hadda la kala siisanayo inuu yahay macquul. haddaad sugtidna in mustaqbalka si tartiib tartiib ah uu u siyaadayo qiimaha. sida aan tusaalahan ku aragno qiimaha saamiga wuu sabeeyey bilihii lasoo dhaafay, balse waxaad filaysaa inuu siyaadi doono qiimaha saamiga mustaqbalka. haddaba waxaad go'aansatay inaad sii lahaatid saamigaas shirkadda ABC. midaasna waxaa loo yaqaanaa hold strategy ama hayso. gunaanad ogow in qof waliba ama shirkad waliba ay leedahay hadaf ay ka leedahay maalgelinta ay samaynayso markaas, oo ayaga ayaa laga rabaa inay go'aan qaataan haddii ay soo gadanayaan, haddii ay iska gadayaan, ama haddii ay haysanayaan. balse waa muhiim inta aysan go'aan gaarin inay baaris sameeyaan ama due diligence. hadda kahor ayaan kasoo hadalnay micnaha due diligence, waxaadna ka heli kartaa lifaaq hoose. mahadsanidin, waa inoo markale haddii rabbi idmo.